siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybtii 11aad daartii Arqam ibn Abi Arqam. daarta Arqam ibn Abi Arqam waxay ahayd rugta ay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisa ku kulmi jireen oo diinta ku bari jiray kuna tarbiyan jiray, waana halka ay ku kala warqaadan jireen intii Maka la joogay. inkastoo ay dacwadu jahri ahayd, haddana xigmadda dacwada waxay keentay in meel qarsoodi ah lagu cibaadeysto, in meel qarsoodi ah la iskugu tago ay diinta ku bartaan, hawshooda qaaska ah ay ku qabsadaan. maxaa yeelay haddii ay bannaanka ku shiri lahaayeen ama ay diinta isku bari lahaayeen, dhib weyn ayaa soo food saari lahaa, sidii dhacdayba maalin ay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisa tageen buuraha Makka oo ay ku tukanayeen. waxaa markaa arkay gaaladii oo dagaal ku soo qaaday, halkaasoo dhibaatooyin la isku gaarsiiyey, sida saxaabiga la yiraahdo Sacad ibn Abi Waqqas oo muslimiinta ka mid ahaa uu laf madaxa uga jeexay nin mushrikiinta ka tirsanaa oo caayay diintiisa, dhibaatana u geystay muslimiinta meesha ku cibaadeysanayay. dhiiggiisana wuxuu ahaa dhiiggii ugu horeeyay oo Alla dartiis loo daadsho intii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam la soo diray. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nebiga sallallahu alayhi wa sallam. kala soco maalmaha ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.